waa qiso dhaba oo dhex martay anigiiyo gabar Soomaaliyeed anigoo aan weligay arag ayaan maalin maalmaha ka mid la ballamay waxayna iigu timid goobtii aan ku ballanay iyadoo soo hormartay muddo 35 daqiiqo ku dhawaad ah hadday albaabka soo garaacday aan ka furay waxaan halhaleel ula u gudbiyay qolka fadhiga ee martida lagu soo dhaweeyay iyo VIP-da haddii gabadhan suuradeeda aan sawir idinkaga bixiyo waxay ku jirtaa dumarka qaybtiisa dheer quruxda iyo hanaanka iyo sharaftana waa ka Soomaali waxay ku labisan tahay surwaal jeans maybe kii u dambeeyay inuu yahay timuhuna way u go'an yihiin garbaha ayadna moodaa inay ku nasanayaan sheeko dheer ayaana dhex martay anigiiyo gabadha sheekada kadibna dib dambe uma arkinin waxaana baafinayaa caawa gabadhaas meel ay cirib iyo jaan dhigtay ma hayo taleefankeediina wuu iga lumay waxaana jecelahay qofkii yaqaana inuu igu soo xiriiriyo idinkuna baadi goobka igala qayb qaadataan una sheegtaan oday Soomaaliyeed inuu raadinayo waa halkii heestii fanaanka weyn ee Suldaan Seeraar uu yiri yarta raadiya ila raadiya qisada gabadhaas cajaa'ibka oo darsi taariikhda aan weligay iloobayn bartay ayaan idin la wadaagayaa goor dhow ee hawday mala'aanina kalana socda channelkan haddii gabadhii aan soo dhaweeyay gabadhan waa gabar Soomaaliyeed oo aan barnaamij ka duubayay ku saabsan barnaamij wacyigelin ka ah qayb ka ah barnaamijyada wacyigelinta ay ka baxa TV-ga Universal halkan ayay iigu timid stuudiyahan caawan idinkaga hadlayo waxayna ka soo hormartay waqtigeedii muddo ilaa 35 mirir ah dadka qaarkood markaad la balantay saacad iyo bar kadib bay ku imaanayaan tani waa professional qowl bayna leedahay waqtigii ayay ka soo hormartay saysan u habsaamin hadday albaabka soo garaacday halhaleelna aan u booday albaabkana aan ballaqay waxaan u soo dhaweeyay qolka fadhiga ee martida lagu soo dhaweeyo waa gabar dheer oo surwaal jeans qabta timuhuna ay u go'an yihiin suuradda iyo hanaanka iyo quruxda Ilaahay u abuurayna waa ka Soomaali intaas ana kaaga filan gabar walbo Soomaalina waa qalanjo wayna qurux badanta laakiin tan ayaanu caawa marti una gabadhan waxaana dhex martay sheeko dheer oo aad iyo aad u macno u sameynaysa isla mar ahaantaana anigaan laftigayga odayga weyn ah darsi ayay bartay da'da aniga iyada noo dhaxaysa ugu yaraan 10 sano ayaan ka weynahay iyo wax ka badan gabadhii haddaan soo dhaweeyay qolkii martida aan fariisiyay sidii martida loo soori jiray iyo gobonimadii Soomaaliyeed aan u sooray waxa aan dib ugu noqday qol aan ku diyaarinayay barnaamijka aanu ka hadlayna laftigiisa ayadiina kii kale ayaan uga soo tagay muddo 15 daqiiqo ayaan ka maqnaa oo halka kaligeed joogtay waxaana soo gashay 15 daqiiqo gudahooda salaadii maghribka annagu waxaan nahay adoomo Ilaahay uu leeyahay Ilaahay wuxuu maalintaas igu arsaaqay kaligiina aan uga mahad celinayaa kuwa dhulka wajiga dhigay inaan ka mid ahaa allana waxaanu ka barinaa dariiqaas inuu nagu sugo kulligeen haddii salaadii aan tukaday ninka farsamo yaqaanka ay la shaqeynayo ka mid ah dadka khiyaarta ah ayaa wuxuu igu yiri inanta u yeero soo fariisa si aanu kaamarooyinka ugu xirno codkeedana aan tijaabino waad garanaysaa marka barnaamij TV laga soo deynayo dadaal fara badan ayaa ka horeeya haddii aan qolkii gabadhu ay ku jirtay aan tagay albaabkii markii hore asagoo furan baan ka soo tagay laakiin markaan in yar ayuu albaabku furan yahay wadeedna waan ku garaacay jawaab ma leh mar kale haddaan garaacay sacno qoobka igu hayay waa aniga kurka ka dhiibtay albaabkii oo gabadhii fiiriyay qolkii waxaa ku jirta gabadhii aan uga tegay gabar ayadii oo kala dheerar leeg oo jilbaab nooca ugu weyn qabta sijaayadna ku taagan qibladana u sii jeeda naftaydaan la sheekaysay leen qof tukanaya laba hadlay sidoo waxaan isiri
intaad qolka ku jirto barnaamij diyaarintiisa ku jirtay gabadhan gabar la socotay baa soo dabamartay oo salaada tukanaysa iyaduna waxa ay ku jirtaa final preparations amase isdiyaar garowgii daqiiqadihii ugu dambeeyey waad iska garanaysaan dumar dunidao dhan laga daawanayo kaamarad laga duubayo the final touch waa yirahdaan ya salaam anigaa intaa nafteyda iska dhaadhiciyey dabadeedna dib waxaan ugu soo noqday stuudiyaha gudihiisa technishankii ama farsamo yaqaankii baa wuxuu i weydiiyey aaway gabadhii waxaan ku yidhi u yaro kaadin yaroo daqsi loo xiro way soo socotaaye daqiiqado kadib cod qof dumara ayaa ii yeeray dabadeedna dibadda ayaan uga baxay stuudiyihii qolkeedii ayaan tegay wayna ii yeertoo kaalay bay tiri haddaan soo dhowaaday waxay igu tiri walaal markay aragtay wejigeygu siduu isku bedelay iyo qofkii aan aqaanay qofkii aan wejigeeda arkay iyo qofkaan inuu kala duwan tahay oo confuse.com aan noqday keligey oo nafta aan la sheekaysana leedahay war see wax u jiraan waxay tiri yusi walaal anigu waxaan ahay bay tiri gabar muslimad ah oo ilaahay ku xiran hase yeeshee waxay tiri nin shaydaan la yidhaahdaa iga adeegtay wuxuuna igala dagaalamay inaan timahayga iyo cawradeeda asturo laakiin ogow shantu igama tagta aniga shandada ayaan ku wataa sijaayadayda iyo jilbaabkayga wejiga ayaana dhulka dhigaa meel kasta oon dunida ka joogo dabadeedna baraf baan iska noqday marka waxaa jirta arrin iyaduna aysan ogeyn idinkana horey aan idinkugu sheeginin arrintaasoo ahayd markay soo gashay stuudiyaha ayaan waxaan isweydiiyey qofka u horeeya khadka taleefonka soo gala stuudiyaha waxaan ka wada albaabka markay soo gashay qofka u horeeya khadka taleefonka soo gala wuxuu leeyahay gabadhan mawduuca ay ka hadlayso waa u baahannahay aada iyo aad laakiin gabdhaha yaryar ee soomaaliyeed fartiin khalada ayay u diraysaa say u labisan tahay kuwaasuna garab bay leeyihiin annaguna hidaayada ma hayna gabadhaanuna ayadaasaa u labisanta marka martidiina inaad raalli gelisaad doonaysaa daawadihiina inaad raalli gelisid awrtuna waa harga goosatay marka arrintaas waan yaro dhibsaday qalbigayga laakiin ayada ma rabo ma tusin maadaama ay marti ii ahayd intaa yar aan dhibsaday aan xugmiyey ayay waxay igaga shaafisay sakano waxayna i bartay darsi odhanaya muuqaalkayga ha ku khaldamin waxay afka qalaad yidhaahdaan buugga kabarkiisa ama ciwaanka weyn ee ku qoran adigoon akhrinin oon dhuuxinin macaanida ku jirta ha xukminin ciwaanka buugga awgiis keliya gabadhaas istuudiyihii bay soo gashay ayadoo jilbaab qabta barnaamijkii baan samaynay way tagtay waxaana halkaa ka bartay inaadan mar laba qof adigu xukminin dadkana aadan ilaahay ka xigsanin ilaahayna loo siman yahay ayadoo iga yar inay darsigaa ay barto waa ku faraxsanahay inaan idinka idinla wadaago khaladkaasoo kale uusan idinka dhicinina waan ku faraxsanahay idinla wadaago si kastaba ha ahaatee taleefonkaygii waa aniga qolofkii bedelay taleefonkeedii waa iga lumay waxaana jeclaan lahaa gabadha inaan mar labaad la kulmo oo soo casumo oo barnaamijyo wacyigelin aanu ka samayno waxauna takhasuskeedu ahaa dadka ku takhasusay xanuunka dhimirka ee maskaxda ku dhaca aadna loogu baahan yahay xilligan marka waxaan ku jira anigoo oday soomaaliyeed a idinkana codsanayaa baadigoobka gabadha inaad ila baadigoobtaan suldaan seeraar wuxuu yidhi yarta raadiya ila raadiya marka odaygu gabadha ayuu raadinaya waxaan kaloo jeclaynaa hoosta ka xariiqa maalmahan dambe inaanu arkaynay niman culummo sheeganaya oo la gabadhii taleefon isku sawirta cawday goosatay ila anigu ma oran karo wuxuu yidhi oday soomaaliyeed baan ahaya iyo mid yidhi ninkii manchester united taageera oo shaarkooda xirta diinta islaamka ayuu ka baxay markii kuwa isqarxiya hooyo soomaaliyeed oo suuqa bakaaraha joogta ee caruur agoona tabandhaxabuub ay ku korinaysa iibinaysa intay isku qarxiyaan calooshu bannaanka ay timaado 8 caruuro agoona ay yaalaan laguma yidhaahdo waxaan ka dambeeyey diintay ku jiraan iyo diintay ka baxaan
laakiin manchester shaarkeeda diinta loogaga baxayaa. waxaan ku weydiinayaa jaalla meeshay diinta kaga taallo. darsiga qisadan dhabtaa wax laga baranayo waxay tahay inaadan degdeginin. soomaalidu waxay tidhahdaa hobsiino hal baa la siistaa, oo aadan ku degdeginin inaad niyuuska adigu la oratid oo dadka aad diinta ka saartid oo ummadda aad shaabad ku dhajisid oo aad xukuntid. baadigoobkii gabadhu weli wuu socdaa. waxaana jecelahay inaan insha allahu tacaala idiin soo bandhigno marka aanu la kulanno. halkan ayaad kala soconaysaan barteena youtube channelka.